halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com. habeen wanaagsan dhegaystayaal sidaad u dhantihiinba waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh. qodobada aan caawa barnaamijka idinkugu hayana waxaa ka mid ah waxaa sii kordhaysa eriyidda diblomaasiyiinta ruushka ee laga saarayo waddamo badan. naato ayaa u dambaysay oo xogayaheedu wuxuu yidhi Russia will still have a diplomatic mission to NATO, and the size of that mission, maximum 20 ruushka maraykanku ayuu arrintan ku eedaynayaa warar ku saabsan khilaafka baarlamaanka Soomaaliya. Nigeria dad xero qaxooti ku jiray ayaa dab qabsaday 14 qof ayaa ku dhintay. maxay ka wada hadleen safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo miisaaniyaddan ayaa boqolkiiba 34.5 ka mid ah waxay ku jahaysan yihiin mashaariic horumarineed waana markii ugu horeysay taariikhda abid. waa miisaaniyadda Somaliland oo maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada. Hindiya shaqo la xayeysiiyay 20 milyan oo qof ay soo codsatay. barnaamijka waxaa sanad mawlid Winnie Mandela oo ahayd haweeneydii u dhixi jirtay Nelson Mandela ayaa ku geeriyootay Johannesburg. haweeneydan oo muddo isbitaal ku xanuunsaneed ayaa waxaa la sheegay inay da'deedu ahayd 81 jir waxaana arrintaasi shaacisiyay qoyska ay ka dhalatay haweeneydan waxa ay aad uga soo shaqaysay halgankii loogu jiray xorriyadda dalkaasi iyo weliba nidaamkii kacdoonka ah ee midabta koorka looga soo horjeeday. ragga ka hadlay waxaa ka mid ahaa Desmond Tutu oo haweeneydan ku tilmaamay halyey qaran. waxay si weyn Winnie Mandela u soo caanbaxday iyadoo da'yar markii madaxweyne Nelson Mandela xabsiga la dhigay waxayna ahayd baa la yiri haweeney sii waday kacdoonkii loogu jiray in dalkaasi xor uu ka noqdo cadaankii tirada yaraa ee Koonfur Afrika hogaamin jiray. dowladda Israa'iil ayaa waxay shaacisay in la safrin doono kumanaan muhaajiriin Afrikaan ah. heshiis horey loo gaaray ayaa arrinkani dhigaya dadkan laga musaafurinayo dalka Israa'iil ayaa waxaa la geyn doonaa wadamada Canada, Talyaaniga iyo Jarmalka. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo hadlay ayaa waxa uu sheegay musaafirinta dadkan inay qayb ka ahayd heshiis Israa'iil hore ay ula gaartay qaramada midoobay. tirada dadkan la musaafurinayo waxa lagu sheegay inay gaarayso 16,000 oo Afrikaan ah. rabshada ka dhacay dalka Hindiya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 7 qof. rabshadahani ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii ay soo bannaan baxeen qowmiyadda la midabta kooro ee lagu magacaabo Dalits oo inta badan dowladda India ka eed sheegta. dadkani dibadbaxaya ayaa ka cabanaya xukun maxkamadda ay gaartay oo sheegayay in difaac aysan dadkaasi ka helaynin kuwa weerara. booliiska dalka Colombia ayaa waxay baadigoob ugu jiraan 2 maxbuus oo xabsi ka baxsaday. sarkaal booliiska u hadlay ayaa waxa uu sheegay in maxaabiistan baxsatay ay markii hore qamri cabsiiyeen askartii jeelka ilaalinaysay kadibna ay u sheegeen inay qamri kale u soo gadayaan. xabsigan ayaa waxa lagu magacaabaa La Bichota waxa uu ku yaala caasimadda dalkaasi Bogota. sarkaalka booliisku wuxuu intaasi ku daray in qamrigan waxaad ka warantaa garoonkan Old Trafford. aad baad u mahadsantahay sidii aad bilowga ku sheegtayba Old Trafford waa garoonka labaad ee Britain ugu weyn marka laga soo tago Wembley. 80 kun buu qaadaa inkastoo la wada buuxinin iyadoo loo eegayo in mar walba la helo kuraas maran oo haddii wax uu dhaco shil uu dhaco ama dab uu dhaco meel dadka ay ku cararaan. marka 77 kun iyo inta badan gashaa oo lama buuxiyo garoonka waana nidaam loogu talagalo xiriirka kubadda cagta ay u dejiyeen. Old Trafford ma ahan kaliya in kubadda lagu dheelo maamuuska iyo sharafka iyo ciziga ay aaminsan yihiin taageerayaasha kooxda Manchester ee garoonkaas yaa runtii waxay tahay wax baal dahab ah ka galay taariikhda kubadda cagta England. waxyaabaha hataa marka qaarkood ay ku tilmaamaan waxaa ka mid ah inay diin ka dhigtaan oo way ku qoran tahay waxay ku leeyihiin waa diintanadii weeyaan. يعني واحد كبد كوين معناه خلقع لك دتك موجنيان أي موجنيان وين كو قرنتا جودها مركات قشوا وحيابها هدي مركات إيكتا يديمه هذا آمن سيهن وحكوليهن وهوي النجي أن أردت كلام منا أنت لو حويان مركات جرون كجودي سلقة صوته وانو إيمان دورنا شرحات بدنهم كبيهنين ودبل لكن بنانك تلوين بياله أو ركحنا أو رجي أوه ويناية تاريخ ده كبد عكت مانشستر يونايتد هي دتك الهاو أساسي لغو ما موسى أو وارتوا كان لسكو صورتها
taariikhda west baa ka mid ah ninkii la oran jiray Bobby Charlton haddaba nool baa ka mid ah dabcan marka aad television ka daawanayso iyo markaad garoonka joogtaa way kala duwan yihiin bal waxaad ka warantaa joogitaankaaga aad garoonka joogtay wuxuu kaga duwanaa markaad ka daawan jirtay televisionka waa su'aal dadka inta badan ay baraha bulshada igu weydiinayeen Cabdirasaaq oo marka dhalada banaanka ka daawanayso waxyaabo badan oo qofka gudaha jooga uusan arkeenin baad arkaysaa iyo marka qof la jilaafeeyo iyo lagugu soo celini laakiin faa'iidada qofka garoonka gudihiisa ku jira waxa weeyaan suuradii dadka ciyaarayay oo si kula muuqday marka telefishinka ka daawanaysay yaad si kale u arkaysaa kubadda Cabdirasaaq oo aad daawanayso marka laga soo tago waxaad arkaysaa dadkan Britain ama Ingiriiska qowmiyadan la yiraahdo jacaylka iyo xurmada iyo maamuuska ay kubadda siinayaan taageerayaasha baliyay ka waran taageerayaashu way kala duwan yihiin horta mid baa xusid mudan garoonkaas dadka kubadda daawashadeeda u tago magaalada Manchester kuma noolo ugu yaraan 40,000 baa dibadda uga timaada odayga ag fidhiyo Mark la yiraahdo Luton baan ka tagu yiri 41 sanaanan xubin ka ah kursigana fidhiye 104 laakiin kumanaan kala ka yimaada Yurub ka yimaada oo waliba arinta xusida mudan waxa weeyaan Asian ah Malaysia Thailand Shiinaha oo tikidho soo goosta hal ciyaar tikid soo goosta inay daawadaan waana qaarada loogu taageero badan yahay kooxda shahaadiinta gudguduudan aad iyo aad u mahadsan yihiin igu ogow adigana abo China Cup ama koobka Shiinaha uu qabto ayaa waxa uu yahay mid dalka Shiinaha uu ku cazumo dhowr wadan si kubaddaasi ay ugu tartamaan gobolka Wales ayaa ka mid ah kooxaha sanadkan lagu cazumay China Cup waxayna iska hor yimaadeen Gareth Bale oo ah weeraryahanka kooxda Wales afka hore uga dheela isla markaana ah weeraryahanka caalamiga Real Madrid u dheela ayaa ka hadlay tartankan isaga ah isagoo sheegay inay muhiim u tahay Wales inay koobkan ku guulaysato mar uu hadlayna waxa uu yiri waa noo muhiim waa wax qalbigaaga iyo dhiigaaga taabanaya waxaan rabnaa inaan dalkeena ka farxino Gareth Bale ayaa waxa uu yahay ninka kaliya ee ay ku dhaartaan xagga gool dhalinta gobolka Wales oo isagu hamuun weyn u qaba inuu mar koob caalami ah qaado tababaraha kooxdaasi Ryan Giggs weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United ayaa laylinaya kooxda Wales waxayna hadda isku soo hareen marka la eego tartankan China Cup la yiraahdo Uruguay oo ay wada ciyaari doonaan maanta oo Isniin ah Uruguay oo qaaradda America ka socota ayaa iyadu laftirkeeda koox aan la dhayalsan karin ah waxaana u dheela Diego Godin oo Gareth Bale ay ka wada dheelaan horyaalka kubadda cagta ee la liigaha si weyn ay isu yaqaanaan Diego Godin wuxuu u dheelaa kooxda Atletico Madrid oo xifaaltanka uu kala dhaxeeyo kooxda Real Madrid Abiy Ahmed waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Oromada waa 42 jir waxa uu wax ku bartay magaalada Addis Ababa dalka dibadiisana shahaadooyin ayuu ka soo qaatay waa sarkaal darajada ciidanka ka gaaray Cornell waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda gaashaandhigga isagoo sidoo kalena shaqooyin kala duwan ka soo qabtay dalka Rwanda oo uu ka tirsanaa ciidankii nabad ilaalinta Ethiopia sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ku dhaxmaray xuduudda Badama ninkan shaqooyin fara badan baa horyaala waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamid ah ee laga filan karo inuu dejiyo xiisadaha dalkaasi ka taagnaa waxa la og yahay in dalka xaalad degdeg ah uu ku jiro qabiilka uu ka dhashay ee Oromadana ay ka mid yihiin dadka aadka u kacsan marka arrimaha ugu waaweyn ee hadda guud ahaan dadka iyo dalkaba ay ka fili karaan Dr. Abiy Ahmed waxa weeyaan in xaaladda dalka uu ku jiro uu si u dhaamo waxa kale aad isu weydiinaya sida uu uga madax bannaan yahay militariga oo lagu tiriyay inay dalkaasi aad u xukumaan iyo waliba kalsoonida lagu qabi